waa mar kale iyo barnaamijyadeeni aynu ku baadi goobaynay Somaliland la wada leeyahay muddooyinkii u dambeeyana waxaynu milicsanay meesha uu ku dambeeyay qarankii la wada lahaa maanta ka hor iyo sida loo minjaxaabiyay masiirkii ummadda waxaynu isha marinay xaalka masraxa dalka looga arrimiyo madaxtooyada maaliyadda oo mugdi gashay hay'adii duulista u xubsibatay dukaanu nin leeyahay iyo dulmiga sababay dheeliga ka fadhihi sidii cadaaladda iyo garsoorka maantana waxaynu qaybteena shanaad ku eegi doonaa xeerarka sababay inay Somaliland yeelato magaalooyin qufulan iyo degmooyin qaniya waxaanaynu diiradda saari doonaa xeerarka kala reebay gobolada bariga iyo galbeedka Somaliland waana xeerarka magaalooyinka qaarkood ka dhigay kuwa hodan oo dakhligoodu ka badan yahay baahidooda qaar kalena ka dhigay magaalooyin radan waana xeerarka loogu yeedho xeerka midaynta cashuuraha iyo xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka Somaliland waana labada xeer ee kootada ugu xidhay dakhligii dalkani lahaa kaliya magaalooyinka Berbera Hargeysa iyo Gabiley waana xeerarka saaray cunaqabataynta dhaqaale gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag iyo magaalada Boorama wax buuran dhaamin bariga waana xeerar ay hindiseen dadkii talada dalka gacanta ku hayay bilowgii dhismaha Somaliland iyagoo ka faa'iideysanaya awoodii dawladnimo oo ku jirtay gacantooda keentay inay kooto ugu xidhaan deegaanadooda dhaqaalihii iyo cashuurtii dhexda u ahaa qarankii la wada lahaa maxaad kala socotaa magaalooyinka qufulan iyo degmooyinka yaryar ee qaniga laga dhigay maxaad ka ogtahay xeerka dhinaca u janjeeray ee midaynta cashuuraha maxaad ka taqaanaa xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka kabaya booliga la banaystay dakhli sanadeedka Somaliland ayaa 300 milyan oo dollar oo ka soo xaraato cashuurta dalka waxaana Somaliland ku yaala kastama kala awood badan oo u jidaynaya xeerkan midaynta cashuuruhu ma ogtahay in wax kasta oo ka yimaado gobolada bariga iyo wixii u socdaba in lagu cashuuro magaalada Berbera ma la socotaa in iyana gobolada galbeedka waxa ka yimaadiya wixii u socdaba in lagu cashuuro kastamka kala bayd ma ka warqabtaa in wax kasta oo dalka ka soo gala dhinaca hawada iyadana kastamu yaala magaalada Hargeysa halkaasina lagu cashuuro ma ogtahay in iyana gobolada Togdheer Sool iyo Sanaag aanay ka jirin haba yaraatee awooda dawladeed iyo xarumo dakhli qabasho inta badan waxaad maqashaa cashuurta Gabiley iyo Berbera ayaa gobolada bariga lagu cunaa samays weydiisay cid lahayd awooda jireysay in wax lagu cashuuro Berbera iyo Gabiley oo kaliya xogahaasi oo dhan iyo jawaabaha su'aalo badan oo maankaaga ka guuxaya ayuu xambaarsan yahay barnaamijkeena toddobaadkani ugu horeyn Somaliland waxa ku yaala saddex kastam oo waaweyn oo kala ah kastamka Berbera kastamka kala baydh iyo kastamka madaarka ee Hargeysa waxaana soo raaca kastamo yaryar oo kuna kala yaala xuduudaha Somaliland ay la leedahay Soomaaliya iyo xuduudda Djibouti aynu la leenahay waana Lowyacado iyo Tukaraq oo wax badan ka soo xaroonin guud ahaan dakhliga Somaliland goobahaasi la cayimayo ka soo gala taas micnaheeduna waa inaanay jirin meel kale oo ay wax soo maraan aan eegno xeerka loogu yeedho xeerka midaynta cashuuraha xeerka midaynta cashuuruhu waxa uu awooda cashuuraha siinaya kastamada gobolada Saaxil Gabiley iyo Maroodi Jeex saddexdaasi kastamo oo ku qayaxaya dekedaha badda dekedaha bariga iyo hawada xeerka midaynta cashuuraha xeer number 12 waxa uu si xigmad iyo farshaxanimo lagu dheexay awooda dakhli ee Somaliland oo siinaya saddexdan kastame laga dhigay kuwa ugu awooda badan uguna dakhliga badan dalka marka aynu eegno habka loo qorsheeyay loona qoray xeerkan midaynta cashuuraha waxa uu ka dhigayaa guud ahaan dakhliga dalka oo maanta 300 milyan oo dollar kor u dhaafaya mid awood u siinaya in kastamka Berbera dakhliga soo saarta 40% guud ahaan dhaqaalaha dalka halka kastamka kala baydh ee Gabileyna waa awood u siinaya inuu soo saaro 17% guud ahaan dakhliga dalka kastamka madaarka Hargeysa ayaa isna soo saara 19% guud ahaan dakhliga dalka kastamka Saylac ee Lowyacado oo soo raaca saddexdaasi ayaa 9% guud ahaan gobolada bariga ee Togdheer Sool iyo Sanaag iyo Baligubadle oo lagu darayba waxa ay soo saaraan 12 kaliya kastamka Dila ee gobolka Awdal oo isna soo xareeya kaliya 4% dakhliga guud ee dalka sida ayuu xeerka midaynta cashuuruhu ugu kala sadbursiyay dakhliga dalka iyo gobolada bariga iyo kuwa galbeedka xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka oo kabaya xeerka midaynta cashuuraha ayaa isna dhigay in 10% ay leeyihiin dakhliga kastamada ay soo xareeyaan degmooyinka ay ku yaalaan waana ta kala reebtay dalka kana dhigtay degmooyinkan kuwa ka dhaqaala badan kuwa kale magaalada Berbera oo soo xareysa 40% dakhliga guud waa ku dhawaad kala badh dhaqaalihii dalka waxay ku leedahay 10%. Gabiley ayaa iyana dakhliga 17% ee dalka waxay leedahay 10%. waxa uu ka badan yahay dakhliga Gabiley qaadata marka la isku wada daro ka ay qaataan gobolada bariga iyo Boorama haddii aan u dhigno si kale guud ahaan dakhliga dalka sanadkii celcelis ahaan waa 300 milyan oo dollar miisaaniyadda qaranku miisaaniyadda 300 milyan 40% waxa laga soo xareeyaa kastamka Berbera waxaana degmada Berbera leedahay 10% dakhliga ay soo xareeyaa kastamka ku yaala miisaaniyaddaasi 300 milyan waxay gaar Berberi u yeelanaysaa 12 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale kastamka Hargeysa oo soo xareeya 9%
2019 dakhliga guud waxay sanadkii Hargeysa si gaar ah ugu leedahay 5.7 milyan halka Gabiley oo 17% kastamkeeda laga soo xarayna ay sanadkii dakhliga guud si gaar ah ugu leedahay 5.1 milyan oo dollar. Kastamyada Sool, Sanaag, Togdheer iyo Balli-Gubadle oo lagu darayba waxay soo wada xarayaan 12% waxaana dakhliga guud ku leeyihiin 3.3 milyan oo kaliya. Dhaqaalaha la siiyo Gabiley oo ah 5.1 milyan ayaa ka badan isku darka guud ahaan dhaqaalaha la siiyo gobolada Togdheer, Sool, Sanaag iyo Balli-Gubadle kuwaas oo wada jir hela 3.3 milyan oo kaliya. Haddii loo qaybiyo wax ka yar 1 milyan ayaa ku soo hagaagaya gobol kasta oo ay mid ka tahay Togdheer oo ku magacaaban caasimada labaad halka Berberi leedahay 12 milyan iyo Gabiley oo qaadata ku dhawaad 6 milyan. Khiyaamada xeerkan ku jirta ayaa inta kadib bariga laga dhigay wajaale kala baydhna lagu cashuuro tii badana Berbera iyo tii hawada oo Hargeysa. Wuxuuna xeerkani si gaar ah u naasnuujinayaa saddexdaasi gobol ee caasimadu ku jirto waana ta keentay in dekadaha kale ee dalku noqdaan kuwa dayactirka iyo isticmaalkaba ka caagan. Dhaca iyo biliqada la yaab kale ee xeerkani ku sameynaya gobolada bariga waxa kamid ah waxaan la soconaa inuu yahay mid kamid ah tiirarka lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliland iibka xoolaha nool waxaana lagu kala iibsadaa xoolahaasi saylada xoolaha ee dalka ugu weyn oo saylada magaalada Burco ayaa saldhigga xoolaha oo GDP-ga dalka kaalinta ugu weyn kaga jirta sidaas oo ay tahayna Burco xoolahaasi waxay ku hayaan culays iyo inay u yihiin xaarayaal qashinka ay kaga tagaan gobolka wax dakhli ahina kama soo galaan taas bedelkeedana cashuurta xoolaha Burco waxa qaadata Berbera waana tabaylihisay Burco Berberana ka dhigtay hodanka haddii magaalada Burco ay heli lahayd cashuurta xoolaha lagu kala iibsado sayladeeda waxaa soo gali lahaa magaalada Burco dakhli ku dhow 8 milyan oo dollar sanadkii laakiin xeerka dhinaca u janjeeray midaynta cashuuraha ayaa xaqeedii qaaday kana dhigay Burco dameer malafsida kastamka Gabiley ee kala baydhka yaala ayaa isna xaqii gobolada galbeedka ku tagay cashuurta ugu badanna waxa lagaga qaadaa qaadka marka la eego deegaanka hawada ee qaadka laga soo guro waxa aad uga dhow dariiqa wajaale ka degmooyinka Salaxle iyo Balli-Gubadle oo hadii ay soo mari lahaayeen waxay Hargeysa ku iman lahaayeen waqti ka yar kan haatan ee marinka wajaale balse waxa xeerku ku amraya qaadlayaasha inay maraan jidka kala baydh iyo Gabiley si aanay Salaxle iyo Balli-Gubadle uga helin dakhliga cashuureed inuu ahaado dariiqa wajaale jidka kaliya u furan dalka iyo wixii ka soo gala Salaxle iyo Balli-Gubadle ay xukuumadda ugu jiraan xisaabta Kootarabaan waa ta dib u dhaca ku riday deegaanadaasi una rogtay dhul daaqsimeedka wadooyinka Salaxle iyo Balli-Gubadle haddii aad isweydiinaysay in badan maxay tahay sababta ay u xidhan yihiin madaarada magaalooyinka Burco, Boorama, Laascaanood, Buuhoodle iyo Ceerigaabo ee u furan yahay kan Hargeysa oo kaliya waa sida ay cashuurta hawada Hargeysa u qaadan lahayd waxa kale oo kooto loogu xidhay wixii kaargo ah oo haddii aad u socoto Boorama, Burco, Laascaanood iyo Ceerigaabo waxa kugu waajibay in madaarka Hargeysa lagugu sii cashuuro iyadoo aanay waxba ka faa'iidin aad u tagto gobolkaagi haddaba su'aasha ugu mudan ayaa sameeyay xeerarkan goboladii bariga albaabada u laabay kuwii galbeedkana ka dhigay hodanka xeerkan midaynta cashuuraha waxa sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Allah u naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxaana xeerkan midaynta soo diyaariyay wasiirkiisa arrimaha gudaha ee waqtigaasi Axmed Jaambir Suldaan waxaana golaha wakiiladu si degdeg ah u meel mariyeen 27 bishii 3 sanadkii 2000 sidoo kale madaxweyne Cigaal ayaa xeerkan isla qalinka ku duugay 8 bishii afraad isla sanadii 2000 isla markale wasiirkiisa arrimaha gudaha ee xilligaasi Axmed Jaambir Suldaan ayaa 12 bishii afraad sanadkii 2000 marka dhaqangelinta siiyay dawladihii hoose ee dalka waana amarka ilaa hadda ku shaqeeyaan sidoo kale xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer number 322 oo isna ka hore si adkaynaya waxa sameeyay madaxweyne Cigaal iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Axmed Jaambir Suldaan waxaana xeerkan ismaamulka gobolada iyo degmooyinka wax ka bedel iyo kaabis si adkaynaysa xuquuq duudsiga ku sameeyay Cabdicasiis Maxamed Samaale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee golaha wakiilada 9 bishii 6 2007 waqtigaasi oo uu ahaa kusimaha waana markii ugu dambeysay ee la furo xeerkani marka laga yimaado labadan xeer ee xuquuqda gobolada bariga lagu lunsaday waxayna la yaab badan leh kabka ay dawladda dhexe siiso dawladaha hoose ee degmooyinka dalka dawladda dhexe lacag lagu sheego kabka degmooyinka ayay siisaa sanad kasta dawladaha hoose ee dalka kabkaasi looma eego sida ay u kala dakhli hooseeyaan degmooyinka dalku balse Berbera, Gabiley iyo Hargeysa ugu dakhli badan ayaa kabkana si siman ula qaadata degmooyinka go'doonka ku jira saddexdaasi degmo iyagoo qaata dakhliga ugu badan ee dalka ayay sidoo kale kabka dawladaha dhexe si siman ay ula qaataan degmooyinka la duudsiyay markale mashaariicda horumarinta ee miisaaniyadda ku jirta waxay ku lahaayeen sanadkii ugu dambeeyay 20% taasi oo ka dhigaysa kuwa dhinac kasta ka sadbursada waxa intaasi dheer hay'adaha caalamiga ah ee dalka yimaada isla saddexdaasi degmo iyo Boorama ayay degaan iyadoo ay xusid mudan tahay in gobolada Sool iyo Sanaag loogu yeero deegaano lagu muransan yahay oo aan xasiloonayn sidaas inaanay hay'adaha caalamiga ah uga hawlgelin xeerka midaynta cashuuraha xeerka bari xakameeyay galbeedna ka dhigay xerada hodanka